munaasabadan oo ahayd mid si heersara loo soo agaasimay ayaa loogu dabaaldegayay calanka qowmiyadda Garre oo ka mid ah beelaha ugu faac weyn ee dega bariga Afrika. munaasabadan waxaa ka qayb galay siyaasiyiin, haween, dhalinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada, iyadoona goobta munaasabadu ay ka dhacaysay buuxdhaafiyeen dadyow kala duwan oo ka soo jeeda beeshan. ugu horreyn waxaa ka hadlay goobta mid ka mid ah qabanqaabiyaasha xafladda, iyagoona sheegay in juhdi badan ay ku bixiyeen qasuumidda xafladan. tiimka meeshaan ila saaran walaalaheen oo ugu horeyso walaasheen Sacdiyo Maxamed, lambar 2 Fijay Sharma, lambar 3 Naciimo Maxamed iyo Aamina Cabdullaahi Xuseen. tiimka iyo Habboon tiimkan aad u soo dadaaleen wallahi. Garre cidna kama xigno laakiin waa garanay inaan reerkeena u shaqeyno. caawa waa maalin ka duwan maalmaha kale, waa maalintii beelweynta Garre aan ku wada damaashaadno marka aad iyo aad aan mahadsantihiin. Garrena meel walbo joogo ha guuleysto, ha israaco, ha midoobo. markale waxaan leeyahay hambalyo 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 27 Agoosto mar walbana waa u taagnaanayna xafladan quruxda badan. sidoo kale ka qaybgalayaasha xafladda ayaa dhankooda ku booriyay in laga shaqeeyo midnimada beeshan. waxaan idin leeyahay sanad guuro wacan, Garre meel walba aad joogtaan guul iyo gobonimo idinku ogahay. Garre guul meel walba joogo, waxaan meeshan ka salaamaa Garre meel walba joogo. munaasabadeeni sanad guuradeeni 27 Agoosto waxaan leeyahay Garre meel walba joogo guul iyo gobonimo. war Garre maxaan aadeen, Garre maxaan aadeen, Garre maxaan aadeen. Allahu akbar, Allahu akbar. guul Garre gobonimo waa ugu hambalyeynaya munaasabada 27 Agoosto oo sanad walba lagu qabto meel walba ay beesha Garre ka degan tahay dunida. xamar kaligeed maahan, waxaa lagu qabanayaa Afgooye, Qoryoole, ma aqaan tortoro waxta lagu qabanayo ka waraayo. marka wasgadiyay iska luqada badana aniga waa soo bedelay afkaran soo bedelay ma agaysid alaliiray agaasimaha radio Qoryoole reer Qoryoole ahay karwas uma hadnaqay dhammaan waxaan leeyahay hambalyo waana mahadsantihiin. meel walbo ay qowmiyadda Garre ku noosho waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. xalfadiina quruxsada, midnimada ka shaqeeya, Garre ha guuleysto, ha israaco, ha midoobo. waxaan idin leeyahay qof kasta oo Garre ah midnimada meesha joogtid ka bilow ka shaqeeyaan leenahay. Garre waa hal laba maahan, meel walba uu joogo Garre ha midoobo, Garre ha israaco, Garre ha midoobo. guul ay idin rajaynayaan dhammaantiin anigoo ku hadlaya afka gabdhaha Garre, gabdhaha beelweynta Garre. waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. ugu horreyn waxaa munaasabadan soo xiray musharax madaxweyne ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Marwaluul Isaaq Aadan Halgan. waxa ayna dhammaan marti sharafta deegaanada kala duwan iyo wadamada kala duwan ee caalamka xafladan ugu yimid uga mahad celisay ka qaybgalka xafladan, iyadoona sidoo kale ugu baaqday beeshan in ay ku dadaalaan midnimada. calanka magaciisa ma taqaanin mideeye, calankan magaciisa waa mideeye. waa calan ay leedahay beesha Garre. in calankan caawa laga xuso Muqdisho lagana xuso Jaad iskama imaan, waxay ku imaatay dadaal iyo juhdi iyo midnimada beesha Garre. daaraha injimiina qaar duriyada Garre iskale ciyaar ma mahadsantihiin. aad ugu faraxsanahay inaan wajiyadiina quruxda badan arko.
inaa idinkala soo qayb galo xafladdan waxaa idinku imaaday inaa idinla dardaarmo dhallinyarada beesha Garre dhallinyarada waa hoggaankan beeshan rag iyo dumar waxaan codsanayaa calankan inaan loo isticmaalin in lagu dhibaateeyo dadka deereeska wanaagga iyo deegaanada ay nagala dhaxeeyaan calankan waa calan Garre lagu midaynayo waa calan midnimadeena lagu muujinayo waa calan aan isku aqoonsanayno maadaama aan nahay dad baaxad weyn dawlado kala gedisanna degan waa calaamad ay Garre isku aqoonsanayaan xuskiisa oo sanadlaha ahna waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynayaa xafladii ugu horreysay Muqdisho laga qabtayna dadkii ka qayb qaatay garbahayga ay taagan yihiin gabdhahan quruxda badan wiilashan quruxda badan oo habeen iyo maalin u taagan midnimada beesha Garre waxaa idinku buraarujinayaa dhallinyarada beesha Garre inaad ilaalisaan xuquuqda ee idinku leedahay dawladaha iyo dadka aad dariska la tihiin calankan ma aha calan dawladeed annaga dawladaan ka tirsannahay waxaan ka tirsannahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan degannahay Koonfur Galbeed waxaan degannahay Jubbaland waxaan degannahay Jaad waxaan degannahay Kenya waxaan degannahay Ethiopia iyo qaar kale oo badan oo sanadkan shirka sanadlaha ka soo qayb gali doono waxaan rajaynaynaa sanadkii hore ee midnimada beesha Garre waxaa la taagay 4 dawladood calankooda sanadkan waxaan rajaynaynaa inay 7 calan la taago 7 dawladood ayaa imaan doonta waana Ibraahim Maxamed Mayow iyo xafladda calanka Garre.